Assalaamu calaykum saaxiibayaal ku soo dhawaada Garasbay. Saaxiibayaal muuqaalkan waxaan idinku tusayaa qaabka lacagtaydu ku jirta Garasbay akoonkiina qaabkaad ugu shuban lahaydeen waledkiina kriptaha. Haddaad isticmaashaan Binance, haddaad isticmaashaan Trust Wallet, qaabkaad ugu shuban lahaydeen ayaan idin tusayaa. Iminka balansigayga waxaa ku jira $10 ayaa ku jira. Marka $10 waxaan ku shuban doonaa waledkayga kriptaha ayaan si toos ah ugu shuban doonaa. Garasbay marka waledkaaga kriptaha kaga shubanayso lacagta kuugu jirta si automatic ah ayuu isla markiiba kuugu dirayaa oo wuxuu kuugu shubayaa waledkaaga kriptaha. Haddaba saaxiibayaal optionkan withdraw ayaan taabanayaa saan lacagta ula baxo. Iminka balansigayga $10 ayaa ku jira oo waad aragtaan. Marka $10 waxaan ku shuban doonaa waledkayga kriptaha ayaan ku shuban doonaa. Adiguna waledkaad isticmaasho kriptaha ayaad ku shuban doontaa. Waled kasta oo kripto ah waad isticmaasho ayaad ku shuban doontaa. Marka saaxiibayaal waxaan ku dhufan doonaa halkan ama optionka idiin muuqda ee lacag la bixidda ee ay ku qoran tahay withdraw. Optionka withdraw ayaan ku dhufan doonaa. Waana optionka lacagta aad kula baxaysid weeye oo waad wada garanaysaan ama wad kasaysaan. Marka optionka withdraw ayaan ku dhufan doonaa saan lacagta si toos ah ula baxo. Marka Garasbay saaxiibayaal si automatic ah ayuu lacagta idinkugu dirayaa waledkiina kriptaha. Lacagaha cryptocurrency ee digitalka ah nooc walba yihiin waad kula baxaysaa. Marka saaxiibayaal halka withdraw ayaan ku dhufanayaa optionka idiin muuqda ee withdraw ayaan taabanaya. Markaan ku dhufto halkan ayuu ii soo saarayaa laba option ayuu ii soo saarayaa waa crypto payment iyo local payment. Ta ugu sareysa waa crypto payment weeye oo marka lacagta kugu jirta Garasbay aad ku shubanaysid kriptahaaga weeye. Waledkaaga kriptaha markaad ku shubanayso weeye crypto payment oo si automatic ah ayuu waledkaaga kriptaha kuugu shubayaa Garasbay lacagta kugu jirta akoonkaaga. Halkan hoose ay ku qoran tahay local payment-na waa marka lacagta kuugu jirta Garasbay aad ku shubanaysid EVC, SAD, Sahal, Dahab, Cheb markaad ku shubanaysid weeye. Marka saaxiibayaal inaga lacagta inugu jirta Garasbay waxaan ku shuban doonaa waledkeena kriptaha. Marka taas ayaynu ku dhufan doonaa. Taas ay ku qoran tahay crypto payment ayaan ku dhufan doonaa. Haddaba saaxiibayaal inagu waxaynu ku dhufanaynaa halkaas sare ee crypto payment ay ku qoran tahay oo lacagta Garasbay inugu jirta waxaynu ku shuban doonaa waledkeena kriptaha ayaynu si toos ah ugu shuban doonaa saaxiibayaal. Marka waxaan ku dhufan doonaa halka crypto payment ay ku qoran tahay ayaan ku dhufanayaa. Markaan ku dhufto halkan ayuu keenayaa kadibna halkaas sare ayaan ku dhufanayaa saan u doorto coinkii ama lacagtii kriptaha ahayd aan ku shuban lahaa lacagta igu jirta Garasbay. Markaan halka sare ku dhufto wuxuu ii soo saarayaa coin badan oo kripto ah kadibna saaxiibayaal waxaan ku dhufanayaa ka ugu sareeya ku qoran tahay USDT waliba network-keedu yahay BEP20 ayaan ku dhufanayaa. USDT waliba network-keedu yahay BEP20 ayaan ku dhufanayaa. Markaan ku dhufto USDT waliba network-keedu yahay BEP20 markaan ku dhufto halka sare ay soo gasho waxa la doonayaa inaan soo copy gareysto address-kii USDT BEP20 inaan soo copy gareysto ayaa la doonayaa. Address-kii USDT BEP20 lacagta lagu diri lahaa ayaan soo copy gareysanayaa kadibna Binance-gayga ayaan gelayaa. Markaan Binance-gayga galo kadibna deposit crypto ayaan dhahayaa. Markaan deposit crypto ay dhahdo waxaan ka dooranayaa USDT ayaan ka dooranayaa. Marka network-kii ayaan ka sii dooranayaa. Network waa ka ugu sareeya weeye waa BEP20 weeye. Marka network waa inaad iska hubisaa. Haddii lacagta dirsanayso network aad iska qarado lacagtu way ka khaldamaysaa. Markaynu doorano USDT waliba network-keedu yahay BEP20 markaynu doorano copy ayaanu dhahaynaa waa address-ka ayaynu copy gareysanaynaa. Address-ka lacagta uu Garasbay inugu soo diri lahaa ayaynu copy gareysanaynaa. Marka copy ayaanu dhahaynaa. Marka waxaan ku laabanaynaa Garasbay. Markaynu ku laabano saaxiibayaal address-kii USDT BEP20 ee lacagtan lagu soo diri lahaa halka hoose ayaynu ku baasti gareynaynaa. Halka hoose ayaynu ku baasti gareynaynaa address-kii USDT BEP20 ee Garasbay lacagta inugu soo diri lahaa. Markaynu address-kii halka hoose soo gelino waxaan ka doonayaa lacagtii aynu la baxaynay aynu ku shubanaynay USDT BEP20 inaynu halkaas sare gelino halka enter amount ay ku qoran tahay. Marka halkaas sare waxaan soo gelinaynaa lacagta aynu la baxayno. Halkan hoosena wuxuu naga tusayaa inta lacagta ugu yar ee aad la bixi kartid. Marka Garasbay saaxiibayaal wuxuu ku fiican yahay markaad lacagta kriptaha aad la baxaysid saaxiibayaal waxaad la bixi kartaan $1, $2 wax ka yar ayaad la bixi kartaa. Ma fahanteen? Meelaha qaar waxa lagu weydiinayaa $10 ama lacag ka sii badan baa lagu weydiinayaa. Laakiin Garasbay wuxuu ku weydiinayaa lacag yar inaad la bixi karto $1, $2 inta doontaad la bixi kartaa lacagta. Marka Garasbay saaxiibayaal waxa weeye sarifle aad u wanaagsan saaxiibayaal. $1 baad la bixi kartaa $2, $3 ayaa si automatic ah waliba lagugu dirayaa isla markiiba. Marka halkaas sare waxaan gelin doonaa saaxiibayaal lacagteenu la baxayno. Halka ay ku qoran tahay enter amount.
lacagteenu la baxayno ayaynu gelinaynaa saaxiibayaal. Marka waxaynu gelinaynaa $5 $5 ayaynu halkaas sare gelinaynaa saaxiibayaal. Markaynu halkaas sare $5 aynu gelino saaxiibayaal, halkan hoose wuxuu naga tusayaa lacagteenu dirsanayno iyo intaynu ugu dhacaysa walletkeena kriptaha. Intaynu ugu dhacaysa ayuu halkan hoose naga tusayaa. Lacagteenu dirsanayno waa $5, walletkeena Binance-na waxaynu ugu dhacayaa $4.9 ayaynu ugu dhacayaa. Markaynu intaa dhamayno saaxiibayaal, waxaynu ku dhufanaynaa halka Pay Now ay ku qoran tahay. Halka Pay Now ay ku qoran tahay markaynu ku dhufano, halkan ayuu inoo soo saarayaa. Haddaba saaxiibayaal, lambar xaqiijin ah oo kood ah ayaan la doonayaa. Marka lambarka koodka ah inaynu halka gelino ayaa la doonayaa. Waa lambarkii xaqiijinayay inaad adigu akoonka leedahay. Haddii lambarka koodka ah aad halka aanad gelin, lacagta lama bixi kartid. Marka lambarka koodka ah wuxuu kuugu dirayaa Gmail-kii aad ku samaysatay Garaspay. Akoonka Garaspay Gmail-kii aad ku samaysatay ayaa lambarka koodka ah lagugu dirayaa. Marka lambarka koodka ah ee xaqiijinta ah ayaa laga doonayaa inaad halka geliso. Marka Gmail-keeni ayaynu gelaynaa. Gmail-keena ayaynu gudaha u soo gelaynaa. Markaynu Gmail-keena gudaha u soo galno, waa taa fariintu inoo soo dhacday. Waa taa weeye taa Garaspay ay ku qoran tahay. Fariintaas ayaynu ku dhufanaynaa Gmail-ka inoo soo dhacday. Marka fariinta ayaynu ku dhufano, lambarka koodka ah ee halka kaaga muuqda ayaynu copy garaysanaynaa. Marka lambarka laga dooni maayo inaad qof tusto laga dooni maayo, lambarka koodka ahna 10 daqiiqo kadib wuu isbedelayaa oo lambar kale uu noqonayaa oo dib baa loo update gareynayaa si ammaanka akoonkaaga loo ilaaliyo. Marka lambarka 10 daqiiqo kadib dib baa loo bedelayaa oo ma garanaysa 10 daqiiqo kadib ma isticmaali kartid koodka. Marka waynu copy garaysanaynaa saasanu yara qabanna copy ayaynu dhahaynaa. Markaynu copy garaysano waxaan ku laabanaynaa Garaspay. Kadibna lambarkii koodka ahaa aynu soo copy garaysanay ayaynu halka ku paste gareynaynaa halkaas ayaynu ku paste gareynaynaa. Marka lambarkii koodka ahaa ayaynu halka qabanaynaa paste ayaynu siinaynaa. Markaynu ku paste gareyno halkaas kadib confirm ayaynu dhahaynaa markaynu halka ku paste gareyno. Markaynu saaxiibayaal confirm ayaynu ku dhufano kadib lacagtu way noo baxaysaa si automatic ah. Markaynu confirm ku dhufano halkan ayuu noo soo saarayaa. Marka lacagta diritaankeedii baa la wadaa. Lacagteenu la baxnay waa taas intayna soo gaadhaysa akoonkeena ku soo dhacaysa Binance waa taa. Lacagteenu dirsanayna waa USDT BEP20 weeye. Marka lacagteena Garaspay inugu jirta waxaa lagu shubayaa USDT BEP20. Waxaa lagugu shubayaa USDT BEP20. Marka intay daqiiqadaha yar socdaan ama process-ka yar ayaad sugaysaa. Marka saaxiibayaal, hadda ayay lacagtu inoo dhici doontaa. Marka waxaynu dhihi doonaa refresh ayaynu dhihi doonaa. Saaxiibayaal, imika Binance-ga fariin baa ku soo dhacday. Lacagtii baa soo dhacday waan filayaa. Fariinta halkaas sare ka muuqataa. Waa taa saaxiibayaal, fariinta ayaa soo dhacday. Marka waxaan filayaa inay imika lacagtii lay diray isla daqiiqadan ayaan rajeynayaa saaxiibayaal. Sababtoo ah Binance-ga fariin ayaa ku soo dhacday imika waad aragtaan. Imika haddaan soo rogo fariintaas Binance-ga ku soo dhacday. Marka Binance-ga gelaya imika. Horta refresh baan dhahayaa Garaspay. Marka refresh dhado hadda wuxuu halka ka wadaa in lacagtii lay diray. Kadib marka waxaan gelayaa Binance-gaygii waan gelayaa. Binance-gayaan gelayaa dib baan uga laabanayaa. Markaan Binance-ga soo galo refresh ayaan dhahayaa saaxiibayaal. Lacagtii waa taa saaxiibayaal. Soo ma aragtaan complete. Soo ma aragtaan halka waan ku dhufanayaa. Markaan ku dhufto lacagtii waa taa $4.9 waa kuwa. $4.9 waa kuwa saaxiibayaal. Si toos ah ayay Binance-gayga igu soo dhaceen saaxiibayaal. Soo ma aragtid. Waa taa lacagtii si toos ah igu soo dhacday. Haddaba refresh baan dhahayaa Garaspay markaan ku soo laabto. Refresh markaan idhaahdo saaxiibayaal, lacagtii waa taa. Imika wuxuu ii sheegaya uu leeyahay lacagtaad la baxday waa lagu guuleystay. Binance-na waa taa lacagtayda ku soo dhacday. Soo ma aragtid. $4.9 waa kuwa saaxiibayaal. Isla markiiba way igu soo dhacday Binance-gayga. Marka Garaspay si automatic ah ayuu isla markiiba lacagtii igu diray Binance-gayga. Marka saaxiibayaal, Garaspay waad aragtaan lacagtii inuu leeyahay waa lagu guuleystay lacag la bixitaankaagii. Marka saaxiibayaal, waxaan ku laabanayaa qaybta home-ka, qaybta dashboard ayaan ku dhufanayaa. Saan idin tuso lacagtan la baxay iyo balance-gayga inta ku hadhay. Marka qaybtii home-ka ayaan imika ku soo laabanayaa saaxiibayaal. Haddaba qaybta home-ka markaan ku soo laabto imika balance-gayga waad aragtaan waxa ku jirta $5. $10 ayaa igu jirtay. Marka imika $5 bay igu jirtaa. $5 saaxiibayaal waxaan ku dirsan doonaa toon baan kula bixi doonaa. Toon baan ku shuban doonaa $5. Marka imika haddaan hoos yara socdo halka hoosena waxaad ku aragtaa lacagtii imika aan ku shubtay Binance-gayga ee USDT BEP20. Soo ma aragtid. Lacagtii waa taa. Haddaan ku dhufto waad aragtaan lacagtii saaxiibayaal. $5
ee USDT aan ku shubtay waa taa saaxiibayaal informationkii oo dhammaystiran waa ka haddaba $5 ayay hadhay waxaan ku shubanayaa toon baan ku shubanayaa marka waxaan ku dhufanayaa halka withdraw ayaan ku dhufanayaa sidii waa isku mid sidii tii hore aan u diro kale markaan withdraw ku dhufto waxaan ka sii dooranayaa halka ay ku qoran tahay crypto payment ayaan ka sii dooranayaa taa sare haddaba saaxiibayaal option-kan hoose ay ku qoran tahay local payment waa marka lacagta kuugu jirta akoonkaaga Garsbay aad ku shubanaysid saad EVC sahal dahab jab markaad ku shubanaysid weeye saan horey ku sheegay marka inagu waxaanu ka dooranaynaa ka sare ay ku qoran tahay crypto payment ka sare aynu ka dooranaynaa markaynu ka sare ka doorano halkan ayuu inoo soo saarayaa marka halka sare ayaynu ku dhufanaynaa waxaanu ka dooranaynaa coin-kii crypto-aha ee lacagta aynu ku shuban lahayn ayaynu ka dooranaynaa marka halka sare ayaynu ku dhufanaynaa marka coin badan oo crypto ah ayuu halkan ku soo dhigaya marka coin-ka doonto ayaad lacagta ku shubanaysaa marka saaxiibayaal inagu waxaanu ka dooranaynaa toon coin baan ka dooranaynaa marka hore waxaanu ku shubanay USDT BEP20 marka waxaanu ka dooranaynaa imika toon coin ayaynu ka dooranaynaa markaynu toon coin aynu ka doorano halka sare aynu soo galino waxaanu ka doonayaa addresskii toon inaynu soo koobi garaysano Binance-geena ayaynu dib ugu noqonaynaa markaynu dib ugu laabano kadibna deposit crypto ayaynu dhahaynaa kadibna halka sare waxaanu ku qoraynaa toon ayaynu ku qoraynaa marka toon coin waa taa saaxiibayaal marka toonti waa taa waynu ku dhufanaynaa kadibna network-na waxaanu ka dhigaynaa toon ayaynu ka dhigaynaa marka waynu ku dhufanaynaa markaynu sidaa ugu dhufano kadibna addresskan toon coin ayaynu koobi garaysanaynaa addresskan toon coin ayaynu koobi garaysanaynaa saaxiibayaal oo koobi ayaynu dhahaynaa waana addresskii lacagta uu inagu soo diri lahaa Garsbay markaynu koobi garaysano waxaanu ku laabanaynaa Garsbay ayaynu ku laabanaynaa markaynu Garsbay ku laabano saaxiibayaal halka sare interamunti ay ku qoran tahay waxaynu gelinaynaa lacagta aynu ku dirsanayno toonteena lacagta aynu toonta ku dirsanayno ayaynu halka sare gelinaynaa marka $5 ayaynu toonta ku dirsanaynaa $5 aynu hadhay ayaynu toonta ku dirsanaynaa saaxiibayaal markaynu $5 halka gelino halkan hoose waxay naga tusayaa lacagta wallet-keena ku soo dhacaysa wallet-keena waxa ku soo dhacaya $4.76 $4.76 ayaa wallet-keena ku dhacaya marka fee yar baan ka goosanaya marka toonta lacagta doontaad ku shuban doontaa $1 baad ku shuban kartaa $2.5 baad ku shuban kartaa inta doonaysid ku shuban kartaa marka inagu $5 aynu hadhay ayaynu saaxiibayaal si toos ah ula baxaynaa marka waxaan ku shubanaynaa toon coin ayaynu ku shubanaynaa marka saaxiibayaal halkan hoose waxaynu gelinaynaa addresskii toon coin addresskii lacagtan ku diri lahaa ee toonta ayaynu halkan hoose gelinaynaa halkan hoose addresskii soo koobi garaysanay ayaynu halkan hoose ku baasti garaynaynaa si lacagta wallet-keena Binance ayuu ku dhacdo marka aadna wallet kasta oo aad isticmaasho lacagta waad ku shubanaysaa wallet kasta oo aad isticmaasho oo crypto ah lacagta waad kaga shubanaysaa marka saaxiibayaal halkan hoose ayaynu ku baasti garayn doonaa addresskii toon aynu soo koobi garaysanay ayaynu halkan hoose ku baasti garaynaynaa maadaama halkii sarana aynu ka dooranay toon coin aynu ka dooranay lacagta aynu soo gelinay kadibna halkan hoose aynu hadhay halkan hoosena addresskii aynu soo koobi garaysanay ayaynu halkan ku baasti garaynaynaa addresskana inaad iska hubiso way wanaagsan tahay addresska lacagta ku dirsanayso markaynu addresska halka aynu ku baasti garayno saaxiibayaal kadib hawsha aynu dhamayno waxaynu ku dhufanaynaa option-kan ay ku qoran tahay pay now ayaynu ku dhufanaynaa haddaba saaxiibayaal markaynu ku dhufano option-kii pay now halkan ayuuna keenayaa marka lacagteena si automatic u diri doonaa Garsbay marka imka process bay ku jirtaa lacagteenu marka waa muhiim inaad akhrido halkan yar oo ogeysiis ay ku qoran tahay waraaqda yar oo ogeysiiska ah inaad akhrido waa muhiim waraaqda yar oo ogeysiiska ah Garsbay wuxuu kugu sheegayaa waliba waa af Soomaali weeye waraaqdan yar wuxuu kugu sheegayaa waraaqdan yar oo ku leeyahay system-kan sida automatic lacagta kuugu diraya wallet-kaaga marka hore systemku si automatic ah ayuu USDT u bedelayaa toon markuu USDT toon u bedelo adiga hadhow wuxuu kuu soo dirayaa toontaadii ama coin-ka la baxday ee aad ku shubanaysay lacagta ayuu si automatic ah kugu dirayaa marka waa inaad akhridaa marka waxay qaadanaysaa ilaa 1 daqiiqo 2 daqiiqo meelahaas ay qaadanaysaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay confirm payment ayaad ku dhufanaysaa confirm payment markaad ku dhufato halka hoose aad waraaqdii akhrido wuxuu ku weydiinayaa lambarkii koodka ahaa ee xaqiijinta ahaa aynu markii hore lacagta markaynu dirsanaynay uu ina weydiinayay lambarkii koodka ahaa ee la xaqiijinayay inaad adigu akoonka leedahay marka lambarkii koodka ahaa ayaa la doonayaa inaad halkaas soo geliso ayaa la doonayaa marka waxaynu geli doonaa Gmail-keena si aynu lambarkii koodka ahaa aynu soo koobi garaysano Gmail-keena aynu soo kicinaynaa halkaas aynu ku dhufanaynaa kadibna fariintu waa taas taa ugu sareysa weeye Garsbay ay ku qoran tahay waynu ku dhufanaynaa kadibna lambarka koodka ah ayaynu koobi garaysanaynaa 10 daqiiqo markay ka soo wareegto lambarka koodka ah kuu shaqayn maayo
marka 10 daqiiqo haday dhamaato lambarka koodka ah kuma shaqeynayo marka lambarka koodka laga doonayo inaad cid iska tusto mar walba aad lacag la baxaysana lambarkooda cusub baa lagu diraya oo kii hore aan ahayn marka lambarka koodka ah inuu koobi gareysanayna koobi aynu lahaynaa Garesbay aynu ku laabanaynaa markaynu Garesbay ku laabano lambarkii koodka ahaa halkaas aynu ku baasti gareynaynaa halkaas aynu ku baasti gareynaynaa lambarkii koodka ahaa marka halka aynu baasti ku dhahaynaa si lacagteena si automatic ah uu Garesbay inoogu diro walletkeena markaynu lambarkii koodka halka aynu soo galino kadib waxaan ku dhufanaynaa halkan oo ay ku qoran tahay confirm payment waynu xaqiijinaynaa lacagteenu la baxaynay saaxiibayaal markaynu saa xaqiijino imika lacagta uu inoo diraya Garesbay si automatic ah ayuu imika walletkeena lacagta inoogu diraya waa sidii tii hore kale si automatic ah ayuu walletkeena lacagta inoogu diraya marka processku wuxuu qaadanayaa 1 daqiiqo 2 daqiiqo mararka qaarna si isla markiiba uu ku diraya marka inaga saaxiibayaal imika ayuu lacagta inoo diraya imika process bay lacagtu ku jirtaa lacagta ayuu inoo diraya haddii lacagtu Binance-ga ay ku soo dhacdo ama wallet-ka ku soo dhacdo halkaas aad ka arkaysaa imika Binance-ga ay fariin bay ku soo dhacday soo ma aragtaan halka ugu sareysa marka saaxiibayaal imika halkan wuxuu igu sheegaya Garesbay in la diray lacagtii kadib Binance-ga aan ku laabanaya dib baan u laabanaya marka dib u laabto saaxiibayaal halkaas sare toontii ayaad ku aragtaan soo ma aragtaan halka ay complete ay ku qoran tahay soo ma aragtaan toontii waa taa saaxiibayaal haddaan ku dhufto waad aragtaan saddexdii toon waa taa saaxiibayaal taa ugu sareysa weeye lacagtii hore aynu la baxnayna waa tan $4.90 saddexdii toon aynu la baxnay taa ugu sareysa weeye soo ma aragtaan si automatic ah ayuu Garesbay lacagteena inoogu soo diray walletkeena marka lacagtii waad aragtaan waa complete weeye saaxiibayaal saddexdii toon waad aragtaan haddaan refresh idhaahdo saddexdii toon waa kuwa saaxiibayaal marka Garesbay aynu ku laabanaynaa Garesbay saaxiibayaal markaynu ku laabano refresh aynu dhahaynaa saaxiibayaal waad aragtaan saaxiibayaal Garesbay wuxuu inoo sheegay in lacagtii walletkeena lagu diray oo lagu guuleystay marka waad aragtaa halkan hoose completed weeye $5 waynu dirsanay oo toon ayaa $5 lagu shubay saaxiibayaal marka saaxiibayaal waad aragtaan si automatic ah ayuu Garesbay lacagtii inoogu shubay walletkeena marka Binance-geena haddaynu ku laabano saaxiibayaal waad aragtaan saddexdii soo ma aragtaan saddexdii toon soo ma aragtaan waa taa saddexdii toon saaxiibayaal saddexdii toon si toos ah ayay Binance-geena u soo gashay Garesbayna waad aragtaan saaxiibayaal halka hoose saddexdii toon soo ma aragtaan halka hoose Garesbay saddexdii toon uu inoo diray marka qaybta dashboard-ka aynu ku laabanaynaa qaybta home-ka saaxiibayaal markaynu qaybta dashboard-ka aynu nimaadno balance-geena waad aragtaan waa 00 imika lacagta waynu la baxnay soo ma aragtaan haddaynu hoos yaro soconno lacagtii toonta ahayd aynu la baxnay waa taa saaxiibayaal lacagtii toon uu Garesbay inoogu shubay waa taas $5 haddaynu ku dhufanno waad aragtaan lacagtu waa completed saaxiibayaal waad aragtaan saaxiibayaal saaxiibayaal marka qaybta withdraw haddaan ku laabto oo kadib aan ku dhufto halka crypto payment ay ku qoran tahay kadibna halkaas aan ku dhufto halkan wuxuu ku soo saaraya coin badan hadaad Bitcoin doonayso coin badan buu ku soo saaraya halkan waad la bixi karto marka qaabkan ku tilmaamay ayaad coin walba la baxaysaa coin walba oo crypto ah qaabkan ku tilmaamay ayaad la baxaysaa marka saaxiibayaal qaabkaas ayaad la baxaysaan lacagta crypto ah waad walletkiina crypto ugu shubanaysaan marka saaxiibayaal wiilka dhalinyarada ah ee Garesbay asaasay dhiirigeliya waqti buu iskaliyay oo juhdi buu iskaliyay saaxiibayaal marka dhiirigeliya marka wixii macluumaad ah ee dheeraad ah iyo wixii magaranaysa aad idinku qabtaan oo ray ah la soo xiriira Garesbay wali waxaad kala soo xiriiraan qaybta Telegram-ka kala soo xiriira Telegram channel-ka Garesbayna ku soo biira si aad wixii macluumaad ah ee update cusub wixii dhaca aad ula socotaan insha Allah halka Telegram channel-ka Garesbay ku soo biira saaxiibayaal sarifkan Garesbayna saaxiibayaal feedback wanaagsan ka soo bixiya insha Allah soo dhiirigeliya oo feedback wanaagsan ka soo bixiya saaxiibayaal Garesbay waa ka idin dadaalaya oo waqti juhdi badan iskalinaya saaxiibayaal marka feedback wanaagsan ka soo bixiya oo saaxiibayaal aadna wada mahadsantihiin guuleysta ayaan idin leeyahay Garesbay waa sarifle ammaano iyo degdegsiimo aad mar walba ugu imanaysid mahadsanid